بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقتني لبعض الاكتشافات العلمي في القرآن الكريم. حلقتنا waxaan kugu soo gudbin doonaa xaqiiqo cilmiya oo laga yaabo inaad caadi u ogtahay, laakiin laga yaabo inaadan ogeynba in quraanka istaa ugu jirto. waxyaabaha dib laga ogaaday oo culumta casriga ah dib laga ogaaday waxa kamid ah masaaxada dhulka inta uu biyo ka yahay iyo inta uu bari ka yahay. wax yaani horey loo ogaan karo ma ahayn, oo hadda markii yaani adduunka in la wada maray ay fududaato un baad la ogaado oo dayax gacmeedya la helay oo dhulka in hawada kor laga tasawiri karo dhulka ay suurto gashay. laakiin markii hore oo ayba adkeed in dhulka la wada mari karo, adduunka dhan la wada mari karaahi lama ogaan karin. waa kii yaani ninkii taabiciga jaliilka ah Uqbah ibn Naafi' jihaad uu sii waday dacwo faafin uu sii wado wuxuu tagay wadan yaani wadankaas Morocco ama Mauritania ama Senegal, adigu wadamadaas mid kamid ah oo muxiid al-Atlas, wadan Atlantic Ocean ku aadan. marka badiiba inta saas faraskiisii ugu sii jeediyay wuxuu yiri law a'lamu anna wara'a hadha al-bahri unasun la balaqtu la ilaha illa Allah. hadaan ogaan lahaa yaani hadal macnihiisu sida ah, hadaan ogaan lahaa badan in dad ka shisheeyo dacwada waan gaarsiin lahaa oo tawxiidka waan gaarsiin lahaa. يعني ما بآمن سنة إنتان ومرة يلقطك ومرة كرؤان هين إنه جرو معناها السيدة سا أدونك وكل حرناج جرو صورة قال ما هاي جرين إن أدونك لن لقياسه أنت أول إجي هاي أو أنت بدأ أنت برئة. لكن وحيابها دب لقى وجاذب كم تهاي ودب لقى اكتشافه إن دولك أنت بيئة هي أنت برئة هي أنت أي نسبة هان إكادينهن. وحل وجاذي دولك أنت بيئة إن يتهاي بقول كيف تضاعتني يكو sidoo kale inta bari ah inay tahay 29%. hadaba hadaan ku iraada ka waran quraankana sidaas uu ba Ilaahay ugu cadeeyay subhanahu wa ta'ala. laakiin hadaad quraanka ka raadido aayad quraan oo sida u sheegay kama helaysid. horaan u sheegay quraanka sida Ilaahay u nadmiyay iyo nidaamka Ilaahay u dejiyay quraanka xikmado iyo asraar iyo cilmi aad u fara badan ku jira. laakiin aayada iyo macnaheeda bis waxa laga yaabaa inaad ku fahmin illa ad nidaamkaas yaani an-nidaam ar-raqmi fi al-Qur'an aad tadbiiqiso oo aad fahamto bal Ilaahay subhanahu wa ta'ala nidaamkan wuxuu adeegsanayo qaabka uu quraanka u dejiyay iyo raqamka uu siiyay iyo tirada inta aayadan aad akhrinayso thumma nadara ugu yartaa quraanka. waxaan ka soo saaray aniga cid kale xataa ma ahan waxaan ka soo saaray 3 xaqiiqo 3 yaani tijaabo oo ay 3 marba thumma nadara bis 3 marba ay igu soo baxday yaani number ahaan aan u xisaabiyay thumma nadara inta ay ka kooban tahay xuruf ahaan iyo kelmad ahaan iyo aayad ay ku jirto iyo suurada ay ku jirto waxa aan ban xisaabiyay 3 meelood oo kala duwan 3 jiho kala duwan waxa igu soo baxday isla natiijo isku mid ah 114. macnaheedu thumma nadara Ilaahay wuxuu ku tilmaamay quraanku inuu noqon doono 114 suurado. imagine waana suuradii ugu horeeyay quraanka soo degay, waana arki doonaa de xaqiiqadaas. laakiin quraanka markaad sidaas aad yaani raqmiga aad uga raadiso cilmi un baa laga yaabaa in ikhtishaafaad badan aad ka soo saari karto. marka si fudud hadii aan u sheego sidee quraanka looga soo saari karaa in 72% dhulka uu yahay biyo, 29% ay tahay bari. si fudud inta kelmo inta jeer quraanka ay ku soo aroortay kelmadda bahrun oo mufrad ah بحار ما هو أبحر لما حسابنا أو يعني بحرين لما حسابنا أنت كلمة أو بحر أو مفرد كوسا أرورتي هذا الحساب ده وحكوسا بحدونا صدًا إلى لبمر. أنت كلمة قرآن كوسا أرورتي أما أنت جار قرآن كوسا أرورتي كلمة بر أما بري أو يعني سيداس هذا رادسة أما قرآن كده رادس وحكوسا بحدونا طبعًا إلى لبجار واحد كدريسة هل مر وكلمة بر أردقنت إلهي سبحانه وتعالى القرآن كقصة يعني أن في سورة الضاء أن آيدي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. آيداس كلمة داس يبسا ويعني إلهي كتر ماما يقول كي مركي يعني بدي مركي النبي موسى وكله في شقاب قوة هذه أن دولك قللا وبري ده أما يبس ده أنت جير القرآن كقصة أرتين والطبن يسدح جر لبي 8 جر وبري أي هالمر أو يبسنا أنت صديق لإسكود روح صباحية أن لبده هدي لإسكود رصدني لبده هري 8 يسدح ذان أفرتن يشن باقو صباحي يعني مساحة جودة دولك وحكك وبني هاي بط وقرآن كإلهي كقصة أروري طبعا
32 jeer iyo biri oo quraanka ilaahay uu ku soo arooriyay 12 jeer balaas hal mar oo yabasan ah waxa soo baxay 45 taas hadii mar aad u qaybiso 13 oo biriga ahayd aadna ku dhifato 100 oo ka dhigan yani 100% aad ku dhifato waxa ku soo bixi doona 28 waana masaaxada ama inta birigu uu kala egyahay dhulka waxa ku soo bixi doona 28.88 oo u dhiganta 29 sidoo kale hadaad 45 ama 32 aad u qaybdo 45 oo 32 ahayd yani badda hadaad u qaybiso 45 kuna dhifato 100% waxa ku soo bixi doona 71.1 oo u dhiganta 71% إلهي سبحانه وتعالى قابك قرآنك وعدينيو مسألة علمي أنه هدب أن دبك فهمني قابك إلهي قرآنك وعدينيو وقابك نظم قابك قرآنك يعني حساب أهان قرآنك لو قصو صاري كري وأكيد علي بن أبي طالب نص قرآن مسألة نص وقرآنك قعد وصحابتي انتو دي بدنا يفهم وايين سفود قصو صاري انت عمر بن الخطاب يريد أنا علي أرجع قرآن قاضي معي سلامتي iyadoo 6 bilood ku dhashay loo keenay 6 bilood iyadoo islaan ku dhashay ninkeedii yiraahdo anuga noo dhalin bil 6 bilood anu ku dhashay waligeena ma ana arag markii culimadii kale iyo saxaabadii kale ay dhinac wadooyin kale u dhigeen wuxuu yiri cali aan arkorta cali baan go'aan ku qaadan cali ibn abi darib loo yiri wuxuu masalada naskeeba ku caddahay quraanka ku taala sidee ugu cadda laba aayadood oo aan isu dhaweyn oo laba suuradood oo suuratul baqara iyo suuratu dukhan ay ku kala jiraan أو ما ركتاني أو سكان لبا آيات كلا دون ووصينا الإنسان بالإحسان يعني حسن وحمله وفصاله 30 شهرا يروح سكان والوالدات يرضعن أولادهم حسابا قاب حسابا قرآن كمركات قاب حسابا أضو تطبيقه وتقاب حسابا مسائل ورادي سواء حكوصة بحث وانا مسائل علمية وتلعجب حقيقة ما آمن سني وحان إني اسكتها هيدي مسادفة وح اسكت لعي ونيني تانو ما آمن سني بقول كيف بقول وحنا من سنة إلهي سبحانه وتعالى إعجاز أسرار قرآنك ودحقلي إني تاي وأنا إن شاء الله تعالى إنتاني إن كبضنا بقلال أهنا ويكبو حدا عشرة ضنبان إن شاء الله كقادن دونا إيقو أد فربضان وأطليا بدونتان بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.